السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركة هراء اسكو soo noqosho wacan waxaad soo booqataan Saciid Cabdiraxmaan 4 subscribe ayuu haystaa. Wuxuu ka jawaabay diiniga 4 maadigana 4 hal iyo hal ayaa u dhiman. Okay, waxa kala soo booqanaysiin walaashin ubax beauty and cooking ayadana waxay ka jawaabtay diiniga 2 maadigana hal inta kala dhameystiran dhow ay dhageysan doontaa. waxa kala soo booqataan walaashin Zahra cooking ayadana waxay ka jawaabtay diiniga hal maadiga 2 waxa kale oo aan rabaa halka inaan ka sheego qadro bundiid oo ka jawaabtay 5 oo ah maadiga iyo 3 oo ah diiniga laakiin ma aha qof youtuber ah kulli aniga iyada luuqa ayaan ka wada hadlaynaa. waxa kale oo aan youtuber ahayn oo aan ku arko 2 subscribe Safiya Saada oo ka jawaabtay diiniga hal maadigana maba taaban. insha Allah isku soo noqosho wacan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم قاليها وولاشين زهرة أحمد زهرة فاشيون وال ومركل إذن له سكسونا قشوا عن وسؤاليني جوابه ديني يا مادي اسكو بجري هل كسبح النوجا إذن قبله يويلش كسو جوابي المركة وحارب هذا إن إذن فافاهيه سؤالي جوابه مركة هل كان كلجست عدي كجوابتي يعدي كلو كفائديسانيسaba diiniga wuxuu ahaa marka koowaad goorma ayay dhacday hijriyadii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ka soo hijrooday Makka una hijrooday Madiina. jawaabtu waxa waaye waxay dhacday 29 bishii Safar sanadkii 14aad ee bidcada. kamaada soo jawaabina kulligiin aan kugu celiyo goorma ayay dhacday hijriyadii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ka soo hijrooday Makka una soo hijrooday Madiina. waxa ay dhacday 29 bishii Safar sanadkii 14aad ee bidcada. sanadkii koowaad ah soo qorteen sanadka 14aad ayay dhacday 29 bishii Safar. okay su'aasha labaad ee weydiiyay waxay ahayd sheeg madaxweynihii ugu horeeyay ee islaamka ee amray in 2 jeer laga adimo salaada jumcaha. wuxuu ahaa Usmaan bin Affan. waa ka soo sorry waan fiirnaa bal inay kasoo jawaabina gabar ayaa kasoo jawaabtay. wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee amray in 2 jeer laga adimo salaada jumcaha. wuxuu ahaa Usmaan bin Affan. okay su'aasha saddexaad waxay ahayd sheeg nabigii dhisay Masjidul Aqsa. wuxuu ahaa Nabi Daawud way soo sheegeen badanaa. su'aasha afraad waxay ahayd sheeg 10kii saxaabi ee loogu bishaareeyay ayaga oo nool jannada. sheeg 10kii saxaabi ee loogu bishaareeyay jannada ayaga oo nool. waxay jawaabtu tahay way soo wada sheegeen ilaa hal gabar waxay ka tagtay hala umaleena. waxay ahaayeen 10kii saxaabi Abu Bakr Siddiq, Umar bin Khadaab, Usmaan bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahmaan bin Auf, Talha bin Ubaydiyah, Sa'ad bin Abi Waqaas, Subayr bin Awaam, Abu Ubaydah, Aamir bin Jaraax. caamirka ka tageyseen waa Abu Ubaydiyah Aamir bin Jaraax. kan tobanaad waa Saciid bin Zayd. okay 10kii saxaabi ee ayagoo nool jannada loogu bishaareeyay waa 10kaas. su'aashanaad waxay ahayd sheeg saxaabigii loogu naanaysi jiray Sayfullah Muslim. waa Khalid bin Waliid. waa kasoo jawaabteen wuxuu ahaa ninkii ugu dharbaaxida kulay gaalada markii dambe waatuu seefta markuu dhiibay rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yiri waxaan rabaa inaad noqoto ninka ugu dharbaaxada kulul islaamka maadaama aad ahayd ninka ugu dharbaaxida kululay gaalada. sidaas ayaa seeftiisu loogu celiyay waxaana loo bixiyay Sayfullah Muslim. marka ma sha Allah diiniga halkaas hadaan uga baxno maadiga hadaan u soo jeesano waxaan idin weydiiyay su'aasha koowaad sheeg dawladda ugu soo saarista badan looska. jawaabtu waxay tahay Hindiya. dalka Hindiya ayaa ugu soo saarista badan looska. su'aasha labaad waxay ahayd imise lug ayay leedahay kaneecada. badi waa ka jawaabteen waxay leedahay 6 lugood. su'aasha saddexaad waxa sheeg wadanka caalamka ugu kulul. waa sheegteen qaarkiin waa dalka Liibiya. okay su'aasha afraad sheeg magaalada loo yaqaano magaalada boqolka albaab. ma sha Allah waa Qaahira ee dalka Masar. waa magaalada Qaahira ee dalka Masar magaalada loo yaqaano magaalada ugu albaabada badan. okay su'aasha shanaad waxay ahayd sheeg waxa dunida ugu macaan ee uu carabka ugu dhadhamiyo. ma sha Allah waa sheegeen asxaabta qaar waa candhuuftaada.
qofka hadduu xanuunsado ama candhuuftiisa ay qaraar tahay wax la macmaba jira horta wax mac ood ka dhimiso waa candhuuftaada kadib ayaa cuntada kuu macaataa marka 5 su'aal iyo 5 jawaab waxaan u maleynayaa inay iga haysataan waxaana maanta su'aalaha badi si fiican uga soo jawaabay wiilka la yiraahdo Saciid Cabdiraxmaan oo ka tagay hal maadiga iyo hal diiniga waxa ku xigo gabadha la yiraahdo Qatra Bundiid labadoodana waxaan u maleynaa Qatra waa Gmail Saciid waa YouTuber laakiin ma haysto subscribe 4 xaba ayaan ku arkay u taga wiilka soo booqda insha Allah walaaleyga qaaliga waxaan u maleynayaa inaad iga haysataan jawaabihii cid ka jawaabtay iyo ciidan ka jawaabinba faa'iideysi wacan waana kaasa insha Allah waxa Ilaahay idinkaga baryayaa caafimaad qab cimri dheer iyo cibaado suuban kuwi jannatul firdaws ku kulmi Ilaahay ha naga dhigo su'aashii salaadkan Ilaahay ha noo fududeeyo kullee idilidima faraayo dhiirigelintu waa xaqiina cidi janalka ku cusub subscribe cidi hore ula socotayna like share and comment insha Allah khayr aan dhamaan ayaan idinkaga tagayaa waa barnaamijkeeni maalinlaha ahay maalin su'aalaha la soo weydiinay maalin jawaabaha cidi ka jawaabtay marka insha Allah khayr aan idinkaga tagayaa gabdhaha aan shaashada soo saarina la soo booqdo iyo wiilasha lambarkeygana waxaan soo dhigaa halkan luuqa ayaan ka wada hadlaynaa luuqa igala soo xiriiray insha Allah qof walba iyo abaalmarintiisa intaas iyo waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo amaana Allah amaana rasuul assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh